haddana mikrofoonka waxaa kusoo dhaweynayaa walaalkii Abu Fawzan iyo dhankaas iyo Ohio Columbus فليتفضل مشكورا ومأجورا أخي أبو فوزان. ما شاء الله بارك الله فيك إله سبحانه وتعالى هكو بركايو نخير بدن هكو سي بدعوة سوكر الشيخين يسيد وناكسن وقيت شوابي شيخيga su-aashan hadda aan ku weydiinayo hadii dhowr jeer baa lagu weydiiyey laakiin labadana waa laba qof oo da-yar wadankan Mareykanka ana ku koray waxna ku bartay marka waxay igu yiraahdeen ilooba sheekha noo gudbi hana noo duceeyo talana hana siiyo taladu waxa weeyaan waa lamaana hadda isguursanaya waxna bartay diinta iyo shacairtuna aad iyo aad ay uga muuqato say sheegeen marka waxay leeyihiin maxaad nagula talin lahayd يعني آفات بدن باتشرة ودباتوين بدن باتشرة بربر بدن باتشرة بيرادين حق قويسيسكا محانو مارتيسكا إلالينا تلم حاد نسين لهايد أنا وابنو شيغو حنكوري تضبية توانكي محاضرة متقانا وسلة السعيدة أبو دلحة مارتي دي بقول نقضة بس هو يقعد كيين إنا نسوق بيه إن شاء الله تعالى الشيخ فليتفضل مشكورا ماجورا. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. horta mahad ballaaran baan u celinayaa labada dhalinyarada ah ee mutacalimiinta ee muthaqafiinta ee wadanka wax ka bartay haddana doonaya inay lamaano iyo usro ku soo biira ummadda muslimiinta oo badiya soona saara jiil wax ka bedela dad iyo diin iyo dal inta wax ka bedela horta aad iyo aad baan ugu mahad celinayaa in ay tala soo raadsadeen daliil iyo calaamadna waxay u tahay inay yihiin dad doonaya wanaag dad doonaya khayr dad doonaya usra saciida dhalinyaro doonaysa horumar iyo taqadum kana faa'iidaysatay burburka dhalinyarada durbe ee isguursatay ku yimaada ka baqaya oo runtii gabadh baa xalay waxay igu lahayd telefoon igu soo dirtoorahay inaan guursadaan rabaa laakiin cabsida igu badan in la ifuraan ka baqaya maxaa yeelay heblaayoon isla ekayn baa la guursado oo waxaa la qabay dhowr bilood waa la furay heblaayana sanad baa lagu furay heblaayana 6 bilood baa lagu furay maxaad igula talin lahayd guurka ma iska daayaa maxaa sameeyaa waa god madow oo gacanta la galaye marka runtii waa dhibaato dhalinyarada haysato oo ku soo wajahan waalidiinta iyo culumada iyo ogaasyada iyo malaaqyada iyo wabarada iyo garaadyadu inay xaliyaan oo arrinta xal loo helana runtii mudan weeye haddii aan ku soo dhawaado runtii waa mawduuc dheer oo sidoo Abu Fawzan sheegay intaasoo muxaadaro laga duubay marka hore 17 bay ahaayeen hadda beela kontameeye xagga u dhaafeen oo noocyo badan baa loo duubay waxaan idin dhihi lahaa horta marka koobaad waxaad u baahan tihiin inaad si wanaagsan isu fahamtaan oo isu daraasaysaan oo aad warqado isdhaafsataan warqadahaasoo macnaheedu uu yahay qof walba qofka kale tabiicadiisa runta ah ee xaqiiqada ah kow wuxuu ku wanaagsan yahay kow wuxuu ku xun yahay labo wuxuusan jeclayn saddex kadibna wax alla wuxuusan ku wanaagsanayn meelaha ay hadday kaga imaadaan oo dhibka ka dareemayo iyo daawada loo heli karo horta qodobkaasi waa qodob aan isleeyahay ibaro waan ku barane oo ifaham waan ku fahmi oo iskaybar maxaad cuntaa oo maxaad ka cadhootaa oo maxaad jeceshahay oo maxaa ku dhiba oo maxaad ku fikirtaa oo maxaad yidi diilanaysaa oo maxaad rajaynaysaa noocee inaan ahay baad rajo ka qabtaa inaan noqdo ha kuu soo qoro biilla maadaama mutacalimiintii inay wax aqridaan luqada aad garanaysaan ha idinku soo ku wada qora si wanaagsan waqti u siiya qoraalka iyo weliba inaad fahamtaan oo maskaxda miira war ani maxaad iga damacsan tahay maxaad iga rajaynaysaa qof noocee ah inaan kuu noqon doono ayaad sawiranaysaa gabadhuna sidoo kale waxay leedahay ama wiilku uu ku leeyahay gabadh noocee ah baad sawiranaysaa inaan kuu noqdo ii soo qor bal intaana reerba noqonin intaana isguursanin bal ii soo qor intaa waa mid weeye waa qodob isku yaalla oo aad iyo aad muhiim u weeye qodobka labaad waxaad aad meel hoos uga xariiqdaan labadiina inaad xagga cibaadada iyo xagga taacada iyo xagga alla ka cabsiga inaydan marnaba iskugu imaanin oo shaki gelin oo qof walba uu noqdo waxaad isu guursanaysaan cibaado iyo taaco iyo alla u dhawaansho inaad janno isku gashaan inaad khayrka isu gaalmaysataan inaad cilmiga isla barataan inaad xalaqaadka cilmiga ka wada qayb qaataan inaad dacwada u istaagtaan inaad sadaqada aad wada badisaan inaad qaraabada wada xidhiidhisaan laba qof
oo khayrka lagaga daydo oo khayrka ku horeeya laba qof oo khayrka lagaga daydo inaad noqotaan qodobka saddexaad inaad barataan luqatul xiwaar sidee loo wada hadlaa haddee carab iyo ilka iskugu dhawo way isqaniinaane haddee hadduu wax dhaco seen u wada hadli karnaa seen u wada xiwaartami karnaa xalka dhibkana dhex yaalla sideen go-aan oga gaari karnaa luqada waa inaad barataan luqatul xiwaar waxaana kow ka ah wax la yidhahda ixtiraam labada qof inay isqadariyaan oo mid walba midka kale ra'yigiisa iyo aragtidiisa uu qadariyo qodobka kale waxa la yidhahda afiqa waa inaad isku kalsoonaataan haddaad kala maqan tihiin iyo haddaad isla joogtaan iyo haddaad isla jiiftaan waa inaad labadiina isku kalsoonaataan oo tuhmada iyo shakiga iyo yuu la hadlayaa iyo yay la hadlaysaa iyo talow xaggee buu joogaa iyo qof walba qof kale ficilkuu samaynayo hadalkuu samaynayo hadalkuu ku hadlayo iyo cuntaduu samaynayo iyo shaqaduu soo shaqaynayo fiqe iyo kalsooni yacni maanta xaaskaa waxay ku dhahdo waa inuu madaxa kuu saaran yahay hadduusan sharciga khilaafsanayn ninkaagu wuxuu ku dhaho waa inaad aaminsan tahay ilaa laga helo wax ka khilaafsan waxan uu kuu sheegay qodobka kale attanaasul inaad isu tanaasushaanoo xaqaad adigu lahayd inaad ka tegi karto ood asaga siin karto isaar baa la yidhahdaa wayu'thiruuna calaa anfusihim yani maxaa la yidhaha in la inuu qof kale u dooro qodobka kale waa inaad aad u kala saartaan waxa loo yaqaano ama aad u fahamtaan fanul idaara sidee wax loo maamulaa waa qodob cajiiba see xoolaha loo maamulaa see guriga loo maamulaa see carruurta loo maamulaa see deriska loo maamulaa see qaraabada loo maamulaa see telefonka loo maamulaa sidee caafimaad xumo hadday timaado waa qodob gooniye yacni fanul idaara qaabka wax loo maamulo ama tartiibka waa inay isla fahamtaan fanul idaari iyo waa inayna iskaga keen qasmin yacni inaad kala aragti duwanaan kartaan qofka tal uu soo jeedin karaaye taladaa khilaaf ha ka dhigin ee tala u qaado adiguna fikir ka duwan ayaad qabi kartaa waxaa kalood ku darsataan oo qodob muhiima waxa la yidhahda sabarka iyo dulqaadka iyo taxamulka inaad barataan oo waxa weeyaan laa tajcalu lxabba qubba waxyaalo yar yar ha ka dhigina maxaa la yidhahda wax weyn ha ka dhigina yacni meel ku fillayd dumarka waxaa la yidhahdaa meel bastoolad ku fillayd bay baasuuka ku dhufanayaan marka meesha bastoolad u baahan bastoolada u daaya meesha baasuuka u baahanna baasuukaha loo daayo shay walba marka meesha ku habboon sabar iyo dulqaad ayaa loo baahan yahay waxaan ninka rabaa gaar ahaan inaan 4 kelimo usoo jeediyo haddaad doonayso gabadhaas aad guursanayso gabar wanaagsan oo ku jecel inay kuu noqoto waxaad yeelaysaa waxaad ilaalisaa markay caadada qabta aad u ilaali oo hadalka xun ka ilaali oo maxaa la yidhahdaa ilaali oo xataa cuntada u kari oo suuqa oga soo adeeg oo maqaaxiyaha cunto oga soo qaad salaadii baa laga cafiyey oo caadi ma aha oo dalaaqii baa loo diiday in la furo sidoo kale markay wallacato caliyadu ka daadan oo ilmaha laga abuurayana ilaali caadi ma ahe markay cidiyaha iyo faraha ku kacayso oy 8-9 bilood tahayna oo fadhiga ay ku tukanaysayo ayna weysaysan karin in lugaha loo dhaqa mooyeen war xaaladda ilaali goortay umusha tahayna ilaali ballan waxaan kuu qaadi inay noloshaada ku ilaaliso sidoo kale gabadha waxaan leeyahay ninkaaga waxaad u ilaalisaa ishiisu waxay ku dhacayso jirkaaga iyo gurigaaga meel ay ishiisu wax meel xun yayna qabanin sankiisa u ilaali oo wax uu dhibsado sankiisuusan ku dhicin calooshiisa u ilaali oo gaajada ka ilaali u fiirso ninka markaad u ilaaliso carabkiisa oo iyo calooshiisa markaad u ilaaliso indhihiisa iyo markaad u ilaaliso sankiisa waxaan kuu sheegayaa cid uu kugu doorsanayo adiga lama arko hadde waa mawduuc dheer laakiin waxaan u malaynayaa ilaha inay ku filan tahay ilahina waxaan ka baryaa reer wanaagsan inuu u noqdo tabaaraka wa tacaala wabillahi tawfiiq haddaad noo soo gebagabaysaana aad iyo aad baan u jeclaan lahaa wabillahi التوفيق. ما شاء الله أطال الله عمرك وأعزك في الدارين شيخنا الفاضل وحياك الله وبياك.